بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. والله سوماليد ملك جوجتان بإله سبحانه وتعالى إذا كان ما يلو عدي دبنبك الله كقاضو عدي دن الله وفي أنت بهن الله ديقو أنت بكتا الله بكسيو intii dhimatay allah u naxariisto, waalidiinteena allah u naxariisto, annagana allah nooga daba naxariisto. dalka, diinta, dadka iyo dowladnimadaba ilaahay subxaana wa tacaala inoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadlaynaa laba qodob. qodobka koowaad waa dagaalkii ka socday bariga dhexe oo ay dhici karto inuu u diga rogto dagaal caalamiya bisha Juulaay 29keedii weeye wixii ugu dambeeyay akhbaara kelmadaan ka oranayna. qodobka labaad Soomaaliya oo iyaduna istayga kamid ah, cuntada lagu dagaalamayo miiska saaran kamid ah, Xasan Sheekh Maxamuud legasiga uu ka tagayo oo cadna kelmadaan ka oranayna. Mareykanku wuxuu joojiyay dagaalkii dhowr cisho ka hor. wuxuu dalbaday in la galo dhowr iyo 10 cisho oo hudma ah. Iiraan uma ay joojin, mana aysan maqlin, mana aqbalin. way iska waday madaafiicdeeda iska ridaysay, gantaalaheedu waa duulayeen, daroonadeeda waa soo diraysay. waxay ku fasireen dadka Mareykanka ah in uu yaraaday, aad u yaraaday difaaci cirka. isla markaasna Trump sanad ka hor loo sheegay inuusan dagaalka geli karin, dagaal kalena sii wadi karin iyadoo aan difaac cir lahayn. maxaa ka dhashay? Iiraan waxay duqaysay Jordan maalintii Talaadada 28kii Juulaay. halkaa waxaa ku dhintay 3 qof oo ciidanka Mareykanka ka tirsan, 19 jir gabara, mid kale oo 28 jira iyo mid 25 jira. caruur dhalinyaro ayaa ku baabaaday. waxaa dhaawacmay dozens bay yiraahdeen. dozens waxaa qoray warkaas CBS, Associated Press, New York Times, BBC, kulligooda qoray. legacy media oo dhan ba qoray. macnaheedu maxay tahay? waa waraan la qarin karin oo banaanka u soo baxay. Jordan dadkii deganaa ayaa aad u kacay inay difaacaan madaafiicda ama gantaalaha Iiraan ka imaanayo ay difaacayaan. iyagu kuma socoto, waxay ku socotaa Israa'iil. maxay sameeyaan dhexda markay interception ku sameeyaan lagu qabto Jordan dhexdeeda lagu qabto, ilaa waxaan qabsanayo difaacaya waa Israa'iil iyo Mareykan. bahalkii la qarxiyay baa soo dhacay oo soo daadanaya. qof dhinta, qof dhaawacma, guri duma, dhibaatada iyo damage-ka wuxuu gaarayaa Jordan. dadkii baa kacay. warqad furan baa waxaa qoray dad aan dowladda ka tirsanayn laakiin madax ah oo aad u tiro badan. warqadaas ay leeyihiin baysaska Mareykanku ay ku leeyihiin waddanka iyaga waa in la xiraa. Mareykanku dalka iyaga waa inuu ka baxaa. dagaalkan aan ku jirno waa inaan gabi ahaanba banaanka istaagnaa. waxdana oo noogu jiraa ma jiraan, sabab aan u galnana ma garanayno. waa dareenka ay qabaan shucuubta muslimiinta ee ku nool wadamadan dowladahoodu ay dabadhilifka u yihiin Israa'iil iyo Mareykanka ee dagaalka kula jira Iiraan. kulligood dareenkooda waa noocaas. waxaa kaloo isbuucan shalay oo 28 ahayd iyo maanta 29 iyo doraad ay gantaalo iyo haddii la ku roon yahay drones lagu weerarayay Saudi Arabia. Saudiga ayaa waxay samaysay markii dhinacaas iyo Hormuz laga xiray oilkii, ayaa waxay samaysay si qiimaha oilka loo xakameeyo bay waxay soo saaraysay oil aad u tiro badan. markaas waxay marinaysay baabul mandabka oo dhinacaan la marinayay. intii xagga mari jirtay oo la xiray in la eg iyo in ka badan, maadaama wadamo badan ay fashilan yihiin oo xiran yihiin oo Qatar iyo Imaaraadka iyo Kuwait aysan gudbin karin, iyadoo ay dhinacan ka bamgarayso oo gaas aad u badan ay caalamka u soo saarto. arrintaas ayaa waxaa daawanayay indhahana ka qarsanayay Iiraan oo la sugaysay in ay arrintu gaarto marxaladda hadda meesha ay joogto. maxaa dhacay? iyadina waa laga xiray. 2 markab waa tii lagu gubay oo ay leeyihiin baabul mandab. shalay waxaa la duqeeyey meel la yiraahdo Abqayq oo aad iyo aad meel u weyn ah oo ah meesha lagu sifeeyo batroolka. waxaa kaloo la duqeeyey Jizaan. marka eastiga iyo westiga waa laga duqeeyey.
oil koodii damage aad u badan baa gaaray meeshaan hadda jiisaan maalintii 400,000 oo beeral ayay soo saaraysa 400,000 oo fuusto oo oil ah bay maalintii process garaynaysa capacity-geedu intaas ah waa la xiray shutdown abqiiqna waa la xiray oo midii ugu weyneyd ah aramka oil laba meelood waa weyn baa laga xiray waxa ku soo haray inta hartay xataa hadday wax soo saaraan basically labadii wado oo Sacuudiga oilkiisu mari karay labadiiba waa la xiray dhinaca kale Mareykanku dagaalkii Donald Trump waa nin falan dadka Mareykanka ahi gabi ahaanba waa ka soo horjeedaan dagaalka uu ku jiro waxay iclaaminayaan dadka xogaha hela oo influencerska iyo media social media ah ku jira ma aha legacy media kuwaas ku sheegayaan waxaan Israa'iil rabin laakiin qolada xorta ah waxay warinayaan official stansiga meesha hadda caalamku taagan yahay inay tahay in loo dhaqaaqay dagaalkii saddexaad ee adduunku inuu bilowday Mareykanku wuxuu la diriray oo diplomatically ula diriray China India iyo Russia China wuxuu yiri annaga dhinac iyaga tahay Shiba wuxuu ii sheegay inuusan Iran taageero siinayn Shiba hadlay wuxuu yiri beentis weeye Iran 100% taageero ma siinayna support adag baan siinayna taageero xoog la siinayna Ruushka iyo iyagu wuxuu ku eedeeyay inay siinayaan GPS-ka lagu beegsanayo baysaskooda si precise ah macnaha si loogu talagalay meeshii la tooganayay lala helayo on targetka lala gafayn ayay u tooganayaan meesha rabaan inay toogtaan Iiraaniyiintu xagee bay ka keeneen bay leeyihiin waxay leeyihiin Ruushka iyo China siinaysa China waaba qiratay waxay tiri waanu siinaynaa taageero rasmi ah siinaynaa maxaa dhacday markaa inuu yiraahdo waxaan cunaqabataynayaa China waxaan cunaqabataynayaa India waxaan cunaqabataynayaa Russia arrintaasi marka waa arrin dagaal toos ah ma ku raaci karaan marka wadamada kale ee saaxiibadiisa oo Yurub ay kamid tahay haddii uu cunaqabatayntaada ma aanu ogolin raallina kama ahayn baa ku xigta maxaa yeelay markiiba waxaa iyaguna hadlay qoladan la yiraahdo North Korea waxay yiraahdeen South Korea iyo North Korea waa in dib loo mideeyaa dabdarrada awalba Mareykan baa waday Mareykankiina dagaal ku jira awoodna male wuxuu naga qaadi karana male waa in dib u mideynaa halkaasna waxa ka soo bixi doonta dagaal ay dhici karto inuu ka bilowdo Asia inuu ka bilowdo dhinaca kale Soomaaliya qayb kamid ah ayaa baysas laga samaysanaya maxaa yeelay waxaa la diidan yahay wadamadii Carabta ahaa oo dhan dadkoodii iyo dawladahoodiiba waxay diidan yihiin in hawadooda la isticmaalo oo Iran lagaga duulo waa in la helaa qolo aan maya oran karin baysas baa la samaysanaya labada meelood oo targetka ahi waa Puntland iyo Somaliland maxaa yeelay labadooda ku dhow area-da ay dagaalka ugu muhiimsan rabaan inay ka galaan inay xoog ku furaan baabul mandab xoutiyiintana ay burburiyaan Sacuudigu wuxuu dagaal toos la galay Mareykanka isagoo la socda ayuu wuxuu weeraray Iraq halkaasna waxaa lagu duqeeyay koox la yiri waa Maleeshiyo laakiin Iran ay tiri ciidamadii Iraq bay ahaayeen dawladii Iraqna ay aamusan tahay oo aysan hadli karin dadkaasna halkaasna waxaa lagu dilay dad 20 ilaa 30 kalena waa lagu dhaawacay iyagu waxay Maleeshiyan leeyahay oo burburinay laakiin waxay leedahay Iran ciidamada la laayay waa ciidankii Iraq waxa lagu xadgudbayna waa madax banaanidii Iraq Sacuudiga marka si official ah baa isagana dagaalkii loogu riixay oo loo galiyay oo uu la dagaal galay hadda waxay ka debate garaynaysaa dawladda Sacuudiga inay ogolaato hawadeeda inuu isticmaalo Mareykanku oo ay horey ugu diidayeen kale on the other hand Soomaaliya marka saa loo qasay cid qasaysa waa Israa'iil iyo Imaaraad iyadiiba madaafiic iyo gantaala iyadoo ay ku dhacayaan iyo daroono oo weerar ku socdo bay waxay furtay afkeeda furatay si ay dadka u soo celiso Iiraaniyiintii aan dalka ka saarnay waa soo celinay Iiraaniyiintu waxay ahaayeen jumlo xoog badan marka la joogo xagga dhaqaalaha iyo ganacsiga oo wadankooda ay ka cayriyeen waxay dhaheen sorry waa ka xunnahay dib ha u soo laabteen dadkii ma soo laaban doonaan cidima taqaan waxay kaloo dhaheen dadka degan Imaaraadka ciddii familigooda qof ah asumta oo tiraada soo guura oo soo daga dhaqaalaan u siinayna wuxuu marayaa marka isagu inuu dalkiisa raadinayo
cid soo degta oo ka shaqaysata oo timaada si uu u muujiyo waddankiisu inuu caadi yahay wadamada muslimiinta oo Soomaaliya ay ka mid tahayna wuxuu la dul taagan yahay faas oo ku jarjarayo ku dhibaataynayo ku baabi'inayo marka dagaalkii dagaal adduun ayuu egyahay maxaa yeelay actriska dagaalka hadda ku jira Ukraine baa iyaduna soo gashay oo waxay duqeysay markab ay leedahay Iran arrintaasina waxay soo dhaweynaysaa dagaalka inuu faafo oo ballaarto oo wajiye badan yeesho haddii North Korea China iyo Ruushku ay iyo India ay iskaalmaystaan oo gaashaan buureystaan waa dawladaha aad xoog badan saddex wadan oo nuclear leh wadanka ugu nuclear ka badan adduunka oo ku jiro ayaa halka heshiis ku ah afar wadan waa India iyo North Korea China iyo America Russia mawjada intaas oo israacday adduunku khalkhal buu galaya ciriir buuna galaya Mareykanku marka nin waalaba gacanta ku haya dadkii oo dhan waa kacsan yihiin aad bay u buuqayaan waa qaylinayaan dagaalkana raali kama aha doorashadiina dhowr bari baa ka haray dhowr bilood baa ka haray xaaladdu waa adag tahay in doorashada laga guulaysto dib loo soo celiyo deganaanshihii waa suurtagal otherwise haddii ninkan awoodda sii haysto nin wax maqlana maaha baarlamaanna lama tashado baarlamaanka kuwa joogaan hadda waa babats bay isaga u yihiin IPAC baana maamusha in badan oo ka mid ah inkastoo isbeddel xoog leh u dhacay oo 100 xildhibaan oo dimuqraadiyihi ay hal mar ka soo horjeesteen Israa'iil haddana waxaa la baasiyey sharcigii ahaa in labadooda ciidan la isku daro xagga technology-ga iyo wada shaqaynta waa inay awalba waa jaajuusayeen si hoose u jaajuusayeen Mareykanka inay toos u jaajuusaan in loo ogolaado oo intelligence sharing oo sharciya laga baasiyey house-ka waxay sugaysaa inuu baaso sanadka waa ogaan doonaa wax ka dhaca laakiin waxay u egtaa inay adag tahay sanadku inay baasiyaan qodobka intaasan ka warnay qodobka ugu dambeeya xasan sheekh maxamuudow legasigaagu waa dalka hantida qaran oo taalla in la boobo waxaad caan ku tahay oo ku suntan tahay lagugu xusuusan doonaa inaad qabuurihii qodatay oo Soomaalidii dhimatay oo aakhire aaday ay ka baxsan waayeen waxaa lagugu xasuusan doonaa legasigaaga ka mid ah intaasoo masaajid inaad dumisay iyo intaasoo dugsi oo aadan diintiina ka xishoon waxaa lagugu xusuusan doonaa kuuguna daran legasina ku ah kadib markii mudaxilaadkaagii dhammaaday inaad diiday inaad doorasho qabato raalli laga yahay dadkuna heshiis ku yahay inaad u tanaasusho Soomaali inaad diiday iyaduna adaa ku suntan oo aad marka ajnabi ku celisay dalkii gacantiisa waxaad ku suntan tahay inaad abaabushay kuna guulaysatay Soomaaliya inay burburto oo kala furfuranto Puntland baarlamaankeeda waad arkayseen kuwa makas ah oo wax magarata ah ku mid xataa taariikhda been ka sheegayaan arkay mid national yiraahdo wuxuu yaqaan male waa qof maran wuxuu leeyahay 1948 Soomaalidii galbeed oo baxday kililka waxay ku baxday waxa Jubbaland iyo Puntland hadda ay wadaan oo kale dad laga xanaajiyo baxay taariikh waxba ka garanay dal xoog lagu qaatay ilaa ay hadeerna gobonimo doon ahaa dagaalamaya boqolaal kun oo qofna ay ku dhimatay edab darro noocaas oo kale in lagu hadlo baarlamaanna la fadhiyo la yiraahdo xildhibaan baana waxay ku tusaysaa Soomaalidu ay u maran tahay oo eber u tahay oo dadka horgalay ay yihiin dad khariban oo baaba ah oo wada kulligood laaluush qaata oo iibsan waxaa ka jacjacsiinaya oo ka hadal siinaya kuwan baarlamaan ku jira Puntland imaaraad bay u wada kareysan yihiin maxay ka shaqeynayaan maxay ka hadlayaan mid baa wuxuu leeyahay war Soomaali baa ina deeqda warina ka daaya waxa leeyahay maya 26 sano kadib 30 sano kadib waligii ma u fadhiyeynaa waa dhaqaaqaynaa waxaa la rabaa Soomaali dhagaheeda in lagu celceliyo waa la go'aya waa la kala go'aya xasanow legasigaaga wey gaalkacyo dagaalka laga karkarinaya xasanow waa legasigaaga mar alla markaa timaado dab baa kaca adiga dabla roor iyo kuwa xamar joogay oo lahaa ha lagu noqdo ku meel gaar waxaad heshiis ku ahaydeen doorashadii aad ku soo baxday heshiis baad ku ahaydeen dadka Soomaaliyeed kama dhaadhicin karno inaydinaan heshiis ku ahayn burburinta adna isadke adiguna ku shid xabad isu qaata isku rida dad baa idin maamulaya aanan garanayn idin maamulaya sidii dalku u burburi lahaa xasanow waxaa legasigaaga ka mid ah wadigii diyaaradaha aan ka degi jirin intii aad ka tagtay mudaxilaadkaaga dhammaaday adduunka meel shaqo si official lagaaga yeeray ma jirto mana lagu yeeray waxaa kuu dheer diyaarad Mareykan waxay ka degtay Kismaayo wafdi heer qarana ayaa ka degay Kismaayo oo arrimaha dibadda Mareykanka ka socda
danahooday ka dhamaysteen waxay ka rabeen bay kula heshiiyeen dadka meesha jooga oo aan ahayn dad Soomaaliya u shaqeeya ee ah dad ajnabigaas u shaqeeya waxay rabeen bay kula heshiiyeen legacy-ga ay ka mid tahay Soomaaliya inay kala go'go'day Puntland kama talisid iska daa inaad ka talisid xabad ba isu wadataan waa dinka gaalka ay rabaan inaad dagaalka ka ridaan labo Jubbaland iyadina waa socotay waad arkaysaa wafdiyo caalamiya iyo international community baa imanaya without your permission dalkan aad madaxweyne ka ahaa maxaa kalifay waa kaaga dignay kor baa lagugu sheegay hoos baa lagugu sheegay war dalka ha burburin war waxaan ma samayn kartid ka fariiso war cagaha lu ka dhig war soo celi talada waa diiday xagee u wadaa waxaan arkay madaxweynihii hore Shariif oo ka hadlaya muqdisho oo leh waxaa soo socota muqdisho oo al-shabaab qabsado iyo airportka lagu dirirayo xabad la isla dhacayo dadkoo dhan ay u yaacayaan say u cararaan wuxuu ka hadlayaa nimankii siyaasiyiinta ahaa dabcan waxay ku fiicnayd inay yiraahdaan xamar annagaa difaacayna markuu isagu cararo xasan cararo annagaa difaacayna laakiin inay submission sameeyaan sidayadii kale u hadlaan iyagoo siyaasiyiinta Iran al-shabaab ba meesha qabsanaya waxa ka fiican inay yiraahdaan annaga al-shabaab iska dhicinayna laakiin waad ka shaqeynaysaa al-shabaab inuu dalka qabsado laakiin annaga difaacayna taasay ku fiicnayd xasanow legacy-gaagu waa foolxumo waa mugdi waa burbur ciyaalo aad lacag siiso oo baraha bulshada kugu jira oo yiraahda dal xoreeye iyo ma garanaysaa nabad baa jirta been ay akhriyaan baa jirta nabad buu keenay nabad xagee buu ka keenay ciidamadiiba waa baaba'shay al-shabaabna waa ka adkaaday intii uu la dagaalamay meel kastay kaga adkaadeen meel uu ka qabsaday oo wali haystaana ma jirto ma ujeedaa haday jirtana waa tuulo iyo labo konton meelooda kale ka qabsadeen oo aysan hore u haysan ma ujeedaa marka ma ciyaalkaasaad isku maaweelinaysaa oo aad rabtaa intaa ina taariikhday kuu gelaysaa wixii aad kasbatay baa kuu qoran waxaan aad ula yaabanahay yacni dareen xumada ku haysa dareen la-aanta ku haysa baan la yaabanahay kuwaan kale inay kula shaqeeyaan waa ogahay weliba deni inuu hadda ka shaqeynayo Puntland in dagaal ka qarxo waxaan caddaynayaa waxaan arkaya warqad ay soo saartay danab jimcaale ciidankiisi Garowe warqadaasi waa confirm iyaga soo saaray waxaad arkayseen qolo kale oo leh bari joogto leh dagaalka daawan mayno kuwa kale oo mudug jooga waad arkayseen leelkase iyo reer biciidyahan ciidamo ay leeyihiin iyo kuwa kale oo majeerteenka kale Cumar Xamuudi ah oo lama daawanayno danina ciidan ku soo daabulaya marka maxaa ciidina isxakamayn mayso maxaa la horinayaa dagaal maxaa ka dhalan doona gaalka ayo waxay ka soo doogtay colaad qabiil ba qarxi doona meelay u qaraxdaba haddii aan la qaban oon la xakamayn ninkan kharafka ah oo adeegaha ah oo imaaraad noo soo diray imaaraad isaga dalkiisii oo laga qaxay oo xabad looga cararay runa buu leeyahay war soo noqda aan lacag idin siiye kanuna dalkiisii baa la yiri gub markaasuu gubaya that's the difference ninka gub leh dalkiisa kiisii buu rabaa inuu dib u dhiso isagoo gubanaya oo ay gantaala ku socdaan oo ay weliba Iran ku dhaaratay imaaraad inay taariikhda ka saari doonto buu wuxuu leeyahay soo dega lacag baa idin siinayaa soo dega si ay caadi ugu ekaadaan airboorada iyo meelaha laga shaqaysto iyo dowlada magaalooyinku ay caadi ugu ekaadaan adna wuxuu ku leeyahay dalkaaga burburi markaasaad soo qallajinaysaa adoo indhaha anjaysanaya ciidanka PSF ka mid ma aha Soomaaliya Puntland ka mid ma aha ciidankeeda PSF adiga waa kaa weyn yihiin wayna kaa dambayn doonaan ciidamadayna ka mid yihiin Puntland abaal bay ku leeyihiin waxay difaaci jireen dagaalna kula jireen argagixisada last 30 years dhowr iyo 20 sano ay dagaalamayeen maxaad kula dirirtay wayba ku shaqeynayeen maxaa kula dirirtay noo sheeg waxaa kula dirirtay dhaqankii xumaayo khaldanaa anaa xamar aadiya idinku Puntland qaata qoladii aan ku tiri oo saaxiibada Aaranjaan oo ku yiri qoladaa nagu soo wareeji aqli xumadaadii baad ku dirirteen tii baana weli ku socotaa iyadii baana kuu shaqaynaysa oo aad rabtaa dadkana inaad u sheegtaan dadku waa fahmay waxaa uu qururixi barte Soomaali reer Puntland hurdada waa ka kaceen in badan oo qaylinaysa waan arkayaa laakiin waxaan u digayaa mar kale reer mudug ma waxa idinka qaxaya xoolaha guranaya alaabtiina guranaya qaxaya maxaa u qaxaysaan ma isaga tiraadaan nooga bax magaalada waa tiraadaan maxaa u qaxaysaan
maalin walba maqaxa baa ku jiraysaan oo hadda meel baa u cararaysaan soo baxa oo la hadla oo waxaad tirahdaan colaadda naga dulqaad PSF naga dulqaad colaadeeda hanala soo aadin meel kale ku dagaalama ma ujeedaa marka xasanow dalka waa burburisay raggaasuna waa kula burburiyeen waa saaxiibada nimankii iswatay oo isdoortay baa tihiin inaa kala socotaan aniga laygama dhaadhicin karo cidda idin maamulayso idin wada sheegaysa anigu ma aqaani ma joogin meeshaas la idinku sheegay laakiin sida noo muuqata hal qolaa idiin soo wada dirtay dalka in la burburiyo oo la baabi'iyo heshiis baa ku tihiin inahaasaan odhanayaa wixii soo kordhana waisla soconaynaa wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi